بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا عشر كان نو سعودي xirfada xulashada lamaanaha waxaan soo qaadanay kusoo jirnay oo mo soo galnay jacaylka oon ka soo qaadanay casharkii koobaad wali asaga ayaan ku jirnaa dhowr cashar oo kalena waan ka qaadan doonaa insha Allah haddaba jacaylkan degdega ah maanta la gelayo mashaakilkiisu wataa laanahu jacaylku waa dabayl xoog badan dabaysha xooga badan markay u yartahay dharka kala baxda ama adeebe ku dandaamisaaba oo ay hawadii iyo jawiga ka lumisaa markii dabayl xoog badan ay kugu dhacdo marka dabaysha xoog badan ee jacaylku way kula tagaysaa hadii aad isku dhiibto si fudud marka jacaylku waa awood ka xoog badan oo ku jiidaysa dhinac kale waxayna awoodaa inta aysan ku jiidan in aad iska celin karto laanahu dabayshu haddii mar aad awoodda xoogga badan gacanta u gasho ma kontrooli kartid naftaada ma celin kartid nafahaaga waad khasban tahay meeshii aad jeclayd inaad joogtaad jeclaanaysaa qofkaad jeclayd inaad la joogtaad jeclaanaysaa meel aadan istaahilin iyo gud aadan istaahilin baa laga yaabaa inaad ku dhacdo muhiimadda marka waxaa weeye jacaylka inaad ka fiirsato in aadan hore isaga dhiibin inta aadan isdhiibin oo aadan aqbalin oo aadan qaadanin research samee cilmi baaris samee qofka backgroundkiisa baar taariikhdiisa akhri waxa uu raba akhri waxyaabaha aan ka sheekaysano dhan ka baar markaad ogaatid ka bacdi jacayl dhab la gal laakiin haddii aad isku dhiibto automatic waa ku jiidanaya waa dabaysha xoogga badan maanta jacaylku waa ogtahay mushkiladu dadka baday lagamana maarmo noloshii baa ku dhisan oo ummadda ilaahay inay isjeclaato oo si guud isu jeclaato dadkun isjeclaadaan waa nolosha asaasiyaadkeeda oo weliba dee rag iyo dhadig laba iyo dhadig la isu jeclaado ee waxaa maanta dunida ka jira aan la raacinin iyo reer galbeedka iyo fasaadka ka jira haddaba qofka isku dhiibayso waa inaad hubisaa inuu yahay qof istaahila inaad isu dhiibto mar haddaad jeclaato waad isdhiibaysaa isdhiibiddu marka waxa weeye inaad hubiso qofka aad jeclaanaysid inuu yahay qof aad ku aamini kartid naftaadii iyo mustaqbalkaagii sifa heese adi aad ku jeclaanaysaa maxaa ku jeclaatay ood ku xulatay you don't know ma taqaanid waa iska jeclaatay laakiin muhiim waxa ah intaadan isdhiibin oo dabayshaasi kula tegin in aad dareenkaaga furtid oo aad ka fiirsatid qofkaad jeclaanaysid waa arrin muhiim ah adigana muhiim ku ah annagoo dhanna muhiim noo ah cid kastana muhiim u ah sababta badbaadada naftaada iyo mustaqbalkaaga ayaa ah mid ka qiimo badan wax kasta oo kale oo meesha yaala haddaba waxyaabaha keena jacaylka degdega ah ayaan rabaa inaan ka yara sheekaysano waxaan rabaa inaan ka sheekaysano dhowr qodob oo muhiim ah waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo saaxiibkay jacaylkii saaxiibkay iyo luula ee waqtigii dugsiga sare aan dhiganayo dugsiga sare markaan dhiganayo runtii waxay ahayd waqti taf ah oo runtii aysan ka jirin dunida waxaa la yidhaha social media internetna kama jirin waa 89 dugsigayga sare aqalkiisii markaan dhiganayo ahayd halkaa marka waxaa ka jiray haddii labada qof rabto inay wada hadasho toos baa la isugu tegi jiray ama qoraal baa la isu qori jirayoo qalin iyo warqad baaloof iyo wax lagu qori jiray waxaa dhacday marka inuu iyo nin saaxiibkay ah oo galaaska aan wada dhigano ninkaas marka wuxuu ii sheegay gabar ka mid ah galaaska inuu aad u jecel yahay oo uu ka helay isla markaana way adag tahay in la isu sheegto waxyaabaha hadda jira runtii markaad ku cabirtid waxyaabihii la soo maray inta social media iyo internetka soo gelin hawada aad bay u kala fogaayeen laanahu qofkaad u baahan tahay hadda banaankaad ku dhargeysaa adoo arag yaad banaan ku dhargeysaanba muuqaal baa iska arkaysaan cod baa iska maqlaysaan qoraalkiina isgaaraya banaankaad u kala dhargaya qofka uma baahna waqti ba inuu geliyo social media baa adduunka hal wuxuu ka dhigay tuulo ama America ha joogo ama Yurub ha joogo halkaas aan u kala dhamaysanaya wixii la karo laakiin markaa ma jirin ninkii marka waa la tashaday wuxuu yiri waan ka baqayaa inantaan see warqada ugu geeya waxaan ku warqada soo qoro anaa ka geynaya maadaama aniga aanan gabadha dan ka lahayn anaa iga dhaxaadinayo arrinta u sheegaya kan warqadii buu soo qoray gabadhii baan kursiga la fariistay waagi hore weelishii gabdhaha waa la isla fariisan jiray dhibaato ma ahayn
markaasan gabadhii la fariistay aayar baan buuggeedu dhexgeliyay waxaan ku yiri warqadda buug ku dhexgeliyay ka soo jawaab adiga miyaa soo qoray ugu tiri maya ku yiri laakiin arag warqadda aad arki doonto ka soo jawaab waayahay laba maalin markaan joognay maalintii saddexaad warqadii buugga ii soo gelisay ay leedahay wiilkii u geey waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ahaa markaa wiilkii warqadii furay ilaa dee dhalinyaradu waa israacdaa anugu waxaan ahaa mediatorkii dhexdhexaadiyihii baan ahaa markaan u geeyey oo warqadii isla furnay wiilkii marka warqadda wuxuu ku qoray inuu jecel yahay loof buu ku qoray wax saas ku qoray waxbaan ka diyaariyey maadaama aan saaxiibkii ah laakiin markii dambe warqadda noo timid aad iyo aad baan u fajacnay lianna waxaan la yaabnay asagoo loof kaliyuu qoray iyada loofkii oo waran dhex yaalla oo labada geesdhii ka daadanaya labada indhoodu waaweyn oo meeshaan soo sawirtay oo ilmaynaya iyay soo sawirtay waa kow war maxay leedahay mataqaana adigu waaba jeceshahay anigu waaba ku dhimanayaa look bal fiiri waa 2 days later laba beri kadib marka waxaan maxaan ku yidhi halkaasay hawshii markaa iskala qabsadeen wiilkii iyo gabadhii wixii inta ka dambeeyay mar raba inaan sii galo laakiin waxaa muhiim ah inaan halkaa ka qaato wiil baa warqad qoray gabadh baan jeclahay yiri laba beri kadib waxay u soo qortay wixii wax ka daran ilmo ooyaya indho waaweyn oo ilan ka socoto qalbi dhiig ka daadanayo ay leedahay hadda anaaba waan dhimanayaa marka halkaa waxaad garanaysaa mushkiladda haysata jacaylkiisu degdega u yahay waxyaabaha Soomaalidu ay fahamsan yihiin waxaa ka mid ah oo buug jacaylka taariikhda soo marana waxaa ka mid ah labadan buug ee la yiraahdo ninkii loo jecel Boodheri iyo buuggan kale oo Calimaah iyo Cawrala waxay ka mid yihiin taariikhda Soomaalida ku suntan ee jacaylka marka la fiiriyo cilmi Boodheri waxaa laga qoray buug la yiraahdo ma dhabbaa jacayl waa loo dhintaa waxaana qoray gabadhii uu jeclaaday wiil dhashay oo la yiraahdo Rashiid Maxamed Shabeelle buugga hadda akhrisaan ma dhabbaa jacayl waa loo dhintaa waxaad arki doontaan in cilmi Boodheri gabadha markuu jeclaanayo uu soo la sheekaysan kaliya uu korka jeclaaday oo ay rooti ka gadatay maadaama uu dabaqad hoose ahaa gabadhuna dabaqad sare ahay rooti ka gadanaysay rootigaas markay ka gadanaysay ayuu ka helay halka ayuu ka jeclaaday laba su'aalood iyo hadal wax ka badan ma dhexmari jirin jacayl umuu bandhigan ilaa markii dambe maahan goortuu baktiyey oo uu jacaylkii dilooday oo la dhul dhacay kadib ayuu sheegtay inuu jecel yahay gabadhiina markaa reerku uma ogolayno asna dabaqad hoos u ahaa reer gabadhuna dabaqad sare ahay oo nin baa lagu daray marka Rashiid wuxuu leeyahay 3 jeer ilaa 4 jeer buu arkayba hodan ninka Cilmi Boodheri la yiraahdo xataa intuu fadhi la qaatay lama sheekaysan waxaa la sheegay xataa asagoo xanuunsan in la yiri bal ninka soo daaway mar ay guriga ugu tagtay oo ay isagoo hurda ay inta u tagtay ka soo noqoto li hodan baa ku timi waa asay geeraarka dheer tirinayay saas halka galay hurdada way xuntee hohay maxay seexshay balina xawaar qabo maxaa hodan iyo weydaashay marka waad garanaysaa waxa way xataa marka ma arag marka halka waxaad ka garanaysaa in jacaylkaas balaayo uu ahaa oo hawada uu ka galay ninka oo san gabadhii si hoose cunqi ah oo san u baran sidoo kale buugga Calimaah iyo Cawrala oo runtii buug uu qoray nin aqoon-yahan Faarax Maxamed Cawle yiraahdo waqti hore oo la oran jiray aqoon darro waa u nacab jacayl waxaad garanaysaa laba shay baad ka fahmaysaa kow in jacaylku horta abaalgudya waad ka fahmaysaa oo Cawrala iyo Calimaah doon bay isku barteen uu badbaadiyay markii doontii ay qalqatay waxaad kaloo fahmaysaa aqoontu darradu in ay nacab u tahay jacaylka oo qof jaahil in la jeclaado aysan sax ahayn oo waxba akhri karin waxba qori karin Cawrala way ka aqoon roonayd Cali oo iyadoo Yaman bay ku soo baratay Cali laakiin nin jamhad ah oo asagu durjoog u ahaa laakiin caaqil ah gabiya ah oo geesi ah way jeclaatay ka bacdina waxa ka dhacay inay warqad u soo qortay oo aabaheed oo seedigay aabaheed u akhriyo yacni intuu asagu akhrin waayo in seedigay akhriyo gabadhii walaalkeed inuu akhriyo yaa dhacday oo Cali iyo akhriyay taasoo lagu xukumay xaal Soomaalida dhexdeeda lagu yaqaan xumayn maadaama uu seedigay iyo akhri gabadhii walaashii soo qortay marka waxaas oo dhan baa dhacday taariikhda waa inaad dib u akhrisaan waa in buugta aad dib u akhrisaan jacaylka waa inaad fahmto jacaylku inuu degdeg ku iman waa in buugta jacaylka taariikhda dib loo akhriyaa sheekooyinka saxda ay ku qorayeen oo ka mid tahay aqoon darro oo nacab jacayl oo wax badan aad ka faa'iidi doontaan buugga Cilmi Boodherina aad si fiican u fiirin doontaan inuu jacaylkiisu hakado uusan ahayn
mid muddo uu kaashanaya ama uu ka fiirsanayay casharkeena jacaylkana weli waa noo sii socdaa